madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa amray in shaqadiisa uu sii wato Fahad Yaasiin oo xilka madaxda hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu ka qaaday ra'iisul wasaare Roble. bayaan uu soo saaray madaxweynaha waxaa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble in uu yahay mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka jawaabay qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaare Roble kaasoo uu shaqada uga joojiyay madaxa hay'adda NISA. Roble ayaa xilkaasi si ku meel gaar ah ugu magacaabay Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay cugsanayaan qodobo ku dhigan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha ayay ka muuqatay in uusan ku qancin qoraalka ka soo baxay taliyaha NISA ee ku saabsan dilka Ikraan iyo in xogta la siinayo golaha amniga qaranka. war-saxaafadeed ra'iisul wasaare Roble uu xilka uga joojiyay Fahad Yaasiin waxaa lagu yiri markii ra'iisul wasaaraha uu gaarwaaqsaday in warbixintii hay'adda NISA ee ku saabsanayd kiiska Ikraan Tahliil aanay ahayn mid lagu qanci karo. ra'iisul wasaaraha wuxuu shaqada ka joojiyay agaasimaha guud ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. qoraal ka soo baxay xafiiska agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa lagu sheegay in arrinta Ikraan ay tahay mid xasaasi ah uuna dalbanayo kulan amni. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa horey uga dalbaday agaasime Fahad Yaasiin inuu warbixin degdeg ah oo ku saabsan xaaladda sargaalad Ikraan Tahliil u soo gudbiyo. xaaladda sargaaladan ayaa waxaa ka soo baxaya warar isbuurinaya iyadoo qoyskeeda ugu wardambeysay in ka badan 2 bilood ka hor. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay la kulmay qoyska iyo ehelada Ikraan Tahliil Faarax isla markaana la wadaagay dareenkiisa ku aadan kiiska Ikraan oo dhawaan dowladda sheegtay in Al-Shabaab ay dishay. Roble wuxuu sheegay in xukuumaddiisa ay ka shaqeyn doonto sidii cadaalad ay ku heli lahaayeen qoyska Ikraan. Al-Shabaab ayaa dhankeeda waxay beenisay inay dileen Ikraan balse ay la fajaceen markii ay maqleen war ka soo baxay dowladda oo ku saabsan in iyaga ay dileen Ikraan Tahliil Faarax.